وحساك gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo xilka kala wareegayeen afayeenka cusub ee dhawaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu magacaabay inuu noqdo afayeenka madaxtooyada Soomaaliland kaasoo loo magacaabay afayeen Maxamuud Warsame Jaamac waxaana uu saaka si rasmi ah uu xilkii afayeenimo uu kala wareegay afayeenkii hore ee madaxtooyada Mudane Xuseen Aadan Ciga Xuseen Deerin haddaba munaasabada kooban ee loogu qabtay gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa ka qayb galay oo si rasmi ah xilkaasi uu kala wareejiyay labada afayeen agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland Marwe Khadre Xaaji Geydhe waxaana ka qayb galay agaasimayaasha waxaha ee madaxtooyada Soomaaliland qaybahooda kala duwan afayeenkii hore ee madaxtooyada Soomaaliland Mudane Xuseen Aadan Ciga Xuseen Deer oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu si qoto dheer uga waramay muddadii uu hayay xilka afayeenka waxyaabihii u qabsoomay iyo waliba muhiimadda gaarka ee uu qaranka u leeyahay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland madaxweynaha hadda talada haya Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan si mulki iyo maamuusba leh uga mahadnaqayaa muddada kooban ee aan wada shaqaynaynay ee aan ku magacawnaa xilka afayeenka gudbinta dareenka fariimaha iyo aragtiyaha hogaamiyaha qaranku waa arrin u baahan in si qoto dheer oo miisaaman loo qorsheeyo loona maamulo xafiiska afayeenka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waa barta laga hago isla markaana laga gudbiyo xogaha iyo fariimaha muhiimka ah ee madaxweynuhu u gudbinayo bulshada gudaha iyo dibaddaba waxa kale oo afayeenkii hore ee madaxtooyada Soomaaliland uu istul taagay inuu qaranka u shaqayn doono sunnaha dawladnimada ay ka mid tahay in xilalka qaranku ay meerto noqdaan oo kolba cidii hanan karto loo dhibo xilka afayeenka ee madaxweynuhu iga wareejiyay hadda ma aha mid ugu beertay xumaan ama madaxweynaha iga fogeyn karta madaxweynaha si dhow ayaan u soo wada shaqaynay muddadii uu ku jiray tartanka doorashooyinka taasoo ilaahay ku guuleeyay guushiisuna waa guushayda waxaana ilaahay uga baryayaa inuu xilka ku asturo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xukuumaddiisa iyo xisbiga kulmiye waxaan ballan qaadayaa in si buuxda oo aan hagarsho lahayn aan ula shaqayn doono mar walbana aan la barbar taagnaan doono taageero talo iyo tusaaleynta itaalkaya afayeenka cusub ee madaxtooyada Soomaaliland Mudane Maxamuud Warsame Jaamac oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa ugu horeynba u mahad celiyay xilka uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u magacaabay waxaana uu hoosta ka xariiqay in xilka afayeenka madaxweynuhu uu yahay xil aad u sareeya isla markaana uu soo dhaweynayo kuna qanacsan yahay xilkaasi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisaba waa madaxweyne ku-xigeen aqlabiyad cod shacbi lagu doortay oo qarankii hoggaankiisa ku yimid si xor oo xalaal ah iyagoo kala wareegay xukuumaddii ka horeysay madaxweynihii hore Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo iyo madaxweyne ku-xigeenkiina mar labaad madaxweyne noqday runtii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi halgan dheer iyo hawl adag oo hirbiir leh qarankan u soo galay maantana waxa weeyaan hogaamiyaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi waxa hubaala inuu hirgelin doono hay'adkii geediga horumarka Soomaaliland ee halkan maanta ugu yimid uu ka qaadi doono aad baan madaxweynaha hambalyeynaya mar labaad iyo mar saddexaadba xilka uu magacaabay xilka afayeenka madaxweynuhu waa mas'uuliyad weyn waa afkii madaxweynaha qaranka waa hagaha baahiya awaamiirta madaxweynaha waa meel iyo mansab ay u dhigtaayaan ummadii masiirka shacabkan lahayd iyo ummadii qasriga madaxtooyada laga maamulayay indhahoodu ay halkan soo eegayeen maaha xil yar mana aha xil kooban laakiinse waa xil weyn oo qaran inaan qabto aad baan ugu faraxsanahay afayeenka cusub ee madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa uu fariin gaar u diray cidda sheegaysa in afayeenka madaxweynuhu uu yahay masab hooseeya isagoo arrintaasi ka jawaabayana waxa uu yidhi xilalka qaranku marna waa xil qaran marna waa miisin lagu metelo meel keliya كان ما تلوريجي أو ميد مجيء مثال له وأنا فين كي مدحونا قرن كسومالان أنا وكدوري مدنات هي مثال كولي هاي وحنوشين دورا مسؤولية الماموس مسؤولية الماموس كي ملجها ومضي هاي
xilkani waa xil xeelad xurmo iyo xasaanad weyn huwan anoo taas hamiga ku haya waxaan ku hagi doonaa hubsiimo hufnaan iyo howlqabad agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland Marwe Khadre Xaaji Geyn oo si rasmi ah xilka ugu kala wareejisay oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa waxa ay soo dhaweysay afayeenka cusub waxaana ay sagootiday afayeenkii hore ee madaxtooyada xuseen waxaan leeyahay maalin qofun baa la soo dhaweeyay maalin qofun baa la sii sagootiyaa xusbiguna waa xusbigaaga xukuumaduna waa xukuumadaadii kulli waxaan leeyahay waa afayeen si aad u qaaliya u soo shaqeeyay hadday imashada xukuumadda cusub tahayna halkan adag galay hadday wada shaqeynta xukuumadda hore tahayna aad iyo aad u shaqeeyo shaqadiisa mar walba u daacad ahaa kartida dadaalkayga lahaa afayeennimaduna waa digreeto madaxweyne afayeenka cusubna waanu soo dhaweynaynaa shaqooyinkaad qaranka ka soo haysay baanu ognahay halgankaad xusbiga halkan maanta la soo gaaro soo gashay baanu ognahay marka waxaan leenahay adigana maxamed waanu ku soo dhaweynaynaa waanu kugu soo dhaweynayaa xilalka qaranka ayay damcigeedu tahay inay meetan noqoto oo kolba ciddii hanan karta loo dhiibo waana sunnaha dowladnimo axmed saki daahir xasan warbaahinta qaranka Soomaaliland gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.